دلنا جود جالينا هالجرماني مقعد على عبد الرحمن بدوميها جالية دورتموند waxaan si kal iyo laabo u soo dhaweynayaa wafdiga culus ee maanta noo jooga normally wafdi lama dhigi karo sababtoo ah reer Germany bay leeyihiin hadda maanta wafdi way leeyihiin laakiin bariga ayaa marti u noqon doona insha Allah si kal iyo laabo ayaa idin soo dhaweynayaa mudane danjire Abdulaziz Mahmoud Mohamed iyo Qunsul Daahir Salaad Xasan si sharaf iyo karaamad ayaa idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada wadankiina safaaradda iyo shacabkeena anaga ah ee Soomaaliyeed ama diasporaha ku nool wadanka Jarmalka waa laba hay'adood oo aad iyo aad isugu baahan waxaan rabnaa idinka rajaynaynaa wada shaqayn dhab ah oo wanaagsan oo daacad ah oo sidii idin soo diray ah ayaan idinka rajaynaynaa baahiyaha aad iyo aad u tiro badan yihiin waxaan u maleynayaa hadalku qof waliba inta leeyahay inuu qof waliba ku gurmada rugi doono sababta waxa weeyaan su'aalaha dadka ka buuxay dhibaatooyinka wadanka jira meesha laga soo diray waa wadan runtii aan document ka jirin passport laga aqoonsanayn caruurta marka la dhalo la leeyahay hooyada lagu qorayaa dhibaatooyinka aad iyo aad u tiro badan yihiin qofka marka uu shaqeeyo Germany aad la socotaan waxa jirta classification wax la yiraahdo marka uu qofku guursado oo uu dhalo caruur ilaahay siiyo guurkaas kaliya ayaa wuxuu keeni karaa dhaqaale aad u tiro badan sababtoo canshuurta ayaa laga yareynayaa laakiin wiilasheena iyo gabdhaheena Soomaaliyeed ee halkan ka shaqeeya mar walba waxaa la siiyaa class 5 waxa la yiraahdaa class 5 ama class 1 taasi oo macnaheedu tahay in canshuurta mushaharkaani uu bar qaadanayo dhibaatooyinka aad u tiro badan hadalkan aan ku dheeraada ma jecli waxaan hadalkan uga baxayaa waan maleynayaa waliyeena laakiin aad iyo aad baa u mahadsan tahay idin jeexay soo dhawaad